dhamaadkii sagaashameeyadii iyo bilowgii 2000 taleefanadii ugu qiimaha badnaa uguna cajiibsanaa ee uu qof wato berigaas wuxuu ahaa taleefanadii Nokia ahaa يعني berigaas waxay ku jireen taleefanada Nokia ah meesha ay maanta ku jiraan taleefanada iPhone-iska ah iyo qayb kamid ah taleefanada Samsung-iska ah waxa laga yaabaa qayb badan oo idin kamid ah yaraantooda inay xasuustaan waalidkood oo haystay taleefan Nokia ah ama qof qaraabo ay yihiin oo haystay taleefan Nokia ah berigaas qofkii raba in uu qof u jecel yahay ama ixtiraam badan oo u hayo uu u geeyo hadiyad qaaliya wuxuu u geyn jiray taleefan Nokia sanadkii 1997 ayaa shirkadda Nokia waxay soo saartay taleefankeedii ugu horeeyay ee gacanta taleefankaas waxa lagu magacaabi jiray City Man taleefankaas ayaa culeyskiisu wuxuu ku dhadhawaa 1 kiilo bal ka waran adiga oo magaalada la soo aaday oo maanta oo dhan marna qabanaya marna isticmaalaya taleefan culeyskiisu uu ku dhow yahay 1 kiilo laakiin sanadkii 1996 ayaa shirkadda Nokia waxa ay soo saartay taleefankii ugu horeeyay oo smartiya waana taleefankii lagu magacaabi jiray communicator wuxuuna noqday taleefan caan ah oo dunida daafeehda si weyn looga iibsaday haddana 2001 ayaa shirkadda Nokia waxa ay soo saartay taleefankii ugu horeeyay oo camera leh waxaan lagu magacaabi jiray taleefankaas 76 konton dhanka Soomaalida hadii aan u nimaano taleefankii 3310 ee Nokia ayaa aad Soomaalida u soo gaaray qofkii watana wuxuu la mid ahaa qof maanta wata iPhone-kii ugu dambeeyay taleefankan wuxuu kamid ahaa taleefanadii ugu caansanaa ee Nokia ay soo saarto 126 milyan oo taleefankan kamid ah ayaa muddo yar oo kooban iibisay Nokia heer waxay gaartay 49% suuqa taleefanada adduunka ay qabsato oo la waayo cid la tartanta waxaan hubaa waxaad isweydiinaysaa Nokia oo awood lahayd maxay la duuntay oo maxaa sababay in ay shirkadii suuqa oo dhan ka baxdo dhowr musiibo oo dhabarjab weyn ku noqday ayaa Nokia isugu darsamay maamulkii sare ee shirkadda Nokia ayaa isku dhexyaacay oo isqabqabsi bilaabay oo hadba mid ayaa la casilayay wax walbana haddii ay nidaamka hoggaanka iyo kala dambeynta ay meesha ka baxdo burbur ayaa u dambeynaya Nokia way isdhigatay waxayna aamintay inay weligeed suuqa sii haysan doonto oo waxay joojisay dadaalkii iyo juhdigii ay bixin jirtay laakiin maxaa dhacay sanadkii 2007 shirkadda Nokia waxa si kaliis ugu soo baxay oo ka naxsaday shirkadda Apple oo beriga ku soo biirtay suuqa taleefanada smartiga ah Nokia laakiin way iska indhatirtay shirkaddan cusub ee suuqa soo gashay waxayna aaminsaneed in shirkaddan aysan weligeed soo gaareyn maadaama Apple taleefanka ay soo saartay oo ku shaqeynayay nidaamka 2G ah halka Nokia ay berigaasi mareysay nidaamka 3G ah Nokia berigaas waxay diiday in ay isticmaasho nidaamka Android-ka ama iOS-ka oo ah labada nidaam ee taleefanada ugu badan adduunka ay ku shaqeeyaan waxayna isku sii adkaysay oo isku dhajisay in ay ku shaqeyso nidaamkeedii Zambian oo ahaa nidaam laga sii guurayay markaas Nokia waxay lumisay awoodeedii hal abuur waxayna fahmi weyday isbedelka ku socda suuqa smartphones-ka ah iyo rabitaanka macaamiisheeda halka shirkadaha Apple iyo Samsung sanad walba ay soo bandhigi jireen taleefano cusub oo wax cusub ay ku soo siyaadiyeen sanad walba ugu dambeyn shirkadda Nokia waa ay wareertay jihadii ayaana ka luntay waxayna isku dhiibtay shirkadda Microsoft balse ay wax u badbaada uga hesho shirkadda Microsoft waxay bilowday in taleefanada Nokia ay ku shubto nidaamka Windows-ga ugu dambeynna Microsoft waxay iibsatay shirkaddii Nokia oo dhan laakiin Microsoft way xamili weyday shirkaddan khasaaraheeda waxayna go'aansatay iyada laftirkeeda inay lacag yar oo raqiis ah isaga iibiso oo mar ay dhinac isku dhaafiso casharka ugu weyn ee shirkadda Nokia laga baran karo waxa weeye wax walba oo aad gacanta ku haysid ama ganacsi ahaadaan ama wax kale ha ahaadaan waa in aad mar walba hormarisaa oo tadawur aad ku samaysaa lana socotaa isbedelka hareerahaaga ka socda iyo wax walba oo dunida ku soo kordha markaas oo majaalka aad ku jirtid ku saabsan su'aal yar oo kooban adigu ma soo gaartay berigii Nokia la qaadan jiray